إيمانك شيء قرا لقو قبو باين الرحمن كقول كيف ما صور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قورسا وليجية قانقار هدي آتيهين قيرا لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسك إلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسير كوال لقو قيافر قلوبتينا قياما حقي ساد أوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وحين كنا حجرنا تفسير سورة البقرة آية صدح يسغاشا. قال الله تعالى وإذ وقت حص واذكروا وحا حستانو دب حسوستان إذ وقت أخذنا أن قادنا بلهيد ميثاقكم بلنتي ورفعنا فوقكم دشينا وحانو دقنا أطور بورتي دور سينا دشينا لكاني خذوا بانو إذن رقات ما آتيناكم وحيقا أنو دي سيني بقوة دلال قات واسمعوا مقلا وحا ليدين شيغي. قالوا مركا يهود وحيد هذين سمعنا مقلا يو وعصينا ديدني وأشربوا وحا العبسية يهودة في قلوبهم قلبية ذا العجل أي حب العجل دي بيجي عابدين شعيل كيسي ذا قلبي ذا العبسية بكفرهم. قال لماذا قالوا بين دراد قل وحات هذا بئس ما يأمركم بئس ما شيء حماذا يأمركم وإذن فري به استجى إيمانكم رمينتين النوع عاصي وحا إذن فرتبا حماذا إن كنتم مؤمنين أدام مؤمنين بتين. reer banu Israa'iil dib uu Ilaahay ugu noqday aad wuxuu ugu celcelinayaa Rabbi ballan uu ka qaaday oo waliba ballankaasi waa miisaaq waa dhaar la adkeeyay oo xarka lagu xidhay sida shayga xariga loo xidho oo kale ayaa aad loo adkeeyay. waxa lagu waaninayaa oo la farayaa inay kitaabkii Ilaahay qaataan markay warwareegeen wax la yaab laaba Ilaahay uu dul keenayo arrin qasaba ku dhacdo buurtii baa la dul keenay Durusiina iyagoo arkaya waxa la farayaa oo arintaana culayska loogu saaray inay qaadaan kitaabkii la siiyay biquwwatin wasma'u awood iyo dadaalna ku qaata Ilaahayna wax ka dhageysta marka isku darabaan la leeyahay dadaal aad samaysaan iyo Ilaahay oo daacad u noqotaan biquwwatin wa dadaalka wasma'una wa daacad noqda diintana labaasa lagu wadaa hadaynu iska wada daacadno halkan iska wada farfariisano diintu mana soconayso lagumana dhaqmayo lamana tixgelinayo shaygan inaad ka daacad tahay mabda'aaga iyo naftaada oo aad u socotaa waa muhiim oo hawl gasho sida anbiyada Ilaahay ama rasuulkii Nabi Maxamed soo qatibaahay daacadnimana way jirtaa dadaalkaagu hadduu nifaaq wata ama aqraad kale uu iska fashilan yahay sida cudurkii munaafiqiinta ku dhacay labadaas la faray waa ku sujuuday markaas oo aynu hore u soo xusnay inay siyar marooriyeen markay sujuudayeen aymada qaarkood waxay yiraahdaan hadadan waxay aaminsan yihiin sujuudda ugu qiimaha badan inay tahay sujuudda dadban bayna ismarooriska ah oo waxay leeyihiin faraj baabaan ku helayo waatiina lagaga daayay buurtii nagu dhici lahayd marka mudaaraad fi sujuud inay qalloociyaan saasay ay waxoodo dhan u qalloocaa. halkan Ilaahay uu yuhuud markay Ilaahay u jawaabeen waxay yiraahdaan sami'na wa 'asayna culimada qaarkood waxay yiraahdaan sami'na afkay ka yiraahdeen wa 'asaynaana ficilkay ka yiraahdeen oo inta yiraahdeen Ilaahay uu naga daa ballan qaadnayo maqalay ay haddana iska weydaarteeno waxay doonayaan bay sameeyeen taa way yiraahdaan culimadu laakiin wax diidaya ma jiro in afka ka yiraahdaan intee oo intan ka daran bay yiraahdeen imiso hadal oo ka xun ayay yiraahdeen nabigii ag taagan Ilaahay maqlayaan bay yiraahdeen arina Allah jahra Ilaahayna tus nahnu abnaa'u Allah wa ahibba'u ilma Ilaahay baan nahay bay yiraahdeen inna Allah faqir wa nahnu aghniya Ilaahay baa faqir bay yiraahdeen intaas oo hadal oo xun bay yiraahdeen oo tan ka sii daran lafdiga hadiya jeer waxa lagu xambaaraa daahirkiisa
iyo sida muuqaalkiisu iyo waadixa ilaa la helo wax ka duwa marka labadaba way yiraahdeen samicnaa wa casaynaa bay yiraahdeen nasiib daradaas ku dhacday inkaarta ayaa ku dhacday markay kuwan quraanka sidan ilaahay uu ku eedeeyay wuxuu ku amaanay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo awliyadiisii iyo muuminiintii inay iyagu yiraahdeen maxay samicnaa wa atacnaa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir suuradda aakhirkeeda ka akhri waa ammaan weeye ilaahay baa inooga markhaati kacay subxaana wa tacaala inaynu ku dadaalo weeye marka waxay sheegaysaa marka aayaddu in ilaahay laga guddoonto waxyigiisa dadka qowlkooda iyo ficilkoodana iswaafaqsanaado haddaynu imika wardiyayno oo qur-aanka aynu akhriyayno oo aynu ku cibaadaysanayno oo laakiin ficilkeennu waa casaynaa yahay ka war oo waxyigii halkaa yaalo aynu ku cibaadaysanayno tafsiirkiisii dhegaysanayno ku dhaqan aanu jirin dowladdii aanay ku dhaqmayn oon qabiiladii ku dhaqmayn oon sharkadii ku dhaqmayn oon ku dhaqmaynin qoyskii oo aanu qofkii ku dhaqmayn samicnaa way tahay laakiin dee waa casaynaa baa la socoto ficilka ah arrinkana waxaa laga eegaa qofka labadiisu inay iswaafaqsan lima taquuluuna maa laa tafcaluun wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can iswaafaqidda qowlka iyo ficilku ay iswaafaqsan sidaa ilaahay asxaabta uu ku ammaanay wax weyn weeye idan arrintaasi waa muhiim yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamka wada galo wada qaata buu ilahay waa manhajaan kala hadhayna samicnaa wa casaynaa ilaahay buu ku eedeeyey kuwa ah ceebahay lahaayeen waxaa ka mida waushribuu fii quluubihim alcijla bikufrihim halkay ilaahay ka jeclaan lahaayeen kitaabka ka jeclaan lahaayeen rasushiisa ka jeclaan lahaayeen dibi bay jeclaadeen jacayl weliba aada u badan oo la odhan kara qalbigooda cabbay dibiga dabcan dee qalbigu ma cabbi kare waa de wax kuuskuusan waa wax weyn oo muuqdee calaa xadfi mudaaf baa la idhaha waa daruuri in wax lasoo qadaro wuxuu qalbigu cabbi karaa waa jacaylka jacayl bay bahalkaa u qabeen aada u badan sidii markaa nebi yuusuf qisadiisiiba ku jirtay qad shaqafahaa xubban gabadha iyada imra'atu lcasiiz turaawidu fataaha inankii bay jeclaatay xaafadeeda joogay bay ku xanteen dumarku qad shaqafahaa xubban wadgalka wadnuhu u galay wadnahay ku ridatay idan qofka bani aadamka hadduu wax jeclaado waa lagu tilmaami karaa sidaa nasku idan baraya balaaqada badan inuu qalbigiisu cabay waynu idhaahnaa inagu ninkaa hebel soomaa hebel buu cabsan yahay hebel buu cabsan yahay hebel baa ka dhaxadlaya koreena cabsan ayuu cabay xadiidkii daciifka ahaa isaguna waxa uu tilmaamayay xikmadda ahaa xubuka shay yucmi wa yusim haddaad wax jeclaato waanaad ka indhabeelaysa waad ku indhabeelaysa waanaad ku dhagabeelaysa dhagala-aan iyo indhala-aan qof soconaya markaa sidaas weeyo laabilaba ula nasku wuxuu ina baraya ama ilaahay aad jeclaanaysaa ama wixii ka soo horjeeda maa jacala allahu lirajuli min qalbayni fii jawfi marka waxa uu daliilku inagula talinaya qur'aan iyo xadiidba layna farayaa in laabtan laba ma wada gelayaane jacaylkaynu inagu ku disayno ee caruurteenna aynu barayno ee dadka lagu tarbiyeynaya ee iimaanka ahi inuu noqdo ilaahay iyo rasuulka iyo xaq iimaan ma yeelanayo qofkaan intaa jeclaan waaya marka waa ceebaynoo nimanka rasuul haya ee aayaadkii mucjisaadka haya ee kuwii la akhriyayay haya haddana dibigaa dul yuursan aad buu ugu xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisiibaa iyagoo safar ku jiraa waxay idhahan ijcal lanaa daata anwaad siday nimankaa u leeyihiin dhiray seefaha iyo yar marmaryaanay barakaystaan bal annaguna geedaanu yaro barakaysana nebi maxamedow noo samee aad buu xanaaqay nebigu waxaa ka dhigantihin buui sidii nebi muuse qoladiisii ay u yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalih kuwii meel caabudaya qaar wax caabudaya intay soo mareen bay idhahaan bal annagana ilaah noo samee marka waxay culimmadu yidhahdaan waa raadadka gumaysigu leeyahy gumaysigu dadka rabaayaddu ka xumeeyaa waanu jaanjaamiyaa waxyaabaha uu ka kharaabiye ugu weyna waxaa ka mid ah fikirka wanaagsan iyo caqiidada lidaalik baa ilaahay uu ku eedeeyey fircoon qoladiisiibaa markuu u khudbadeeyey ayaa waxaa ilaahay uhi fastakhafa qowmahu faataacuuh wuu fudaydsadayoo markaasuma iska aqbaleen waa soosaa iyo saa maaha miyaanan sidaan ahayn waaya way noo dhantay idan markaa gumaysigu raad xun buu leeyahy qul bisa maa yaamurukum bihi iimaanukum in kuntum mu'miniin iimaanka ku faray arrimaha noocaasa iyo dibi caabud faal xum ah mu'miniinna may hidin
ما كنتم مؤمنين إن نافينا وين قن كرتا ما كنتم مؤمنين هدا مؤمنين بتين واسدا شيغان إيسان تاسنا يدنا وح مارتين إلهي وكأن في وي إيمان كاس مؤمنين بانا هين قف إيمان اللي وحى شيء قاحوا كم الدور صدا حق قال الله تعالى إلهي بأوحد قل وحات هذا النبي محمد إن كانت لكم هدية أيدين سقناتي الدار الآخرة دار تدنبوت شنذا هدى الذي هي يهودي عند الله الرب أكتيس أهاتي خالصة هدى أيدين قونيتهاي من دون الناس ضدك كلال أنتو هدى شنذا كاليقين الذين فتمنوا الموت جارد الضارع إن كنتم صادقين هدارهم شيئا ولن يتمنوه أبدا جارد إيادي مشهد ولقود دوني مايا بما قدمت أيديهم قعمه وحي هرم مرسدين درادي وحكوه الرئيوغي والله عليم بالظالمين إلهي الظلم فلياش آد بوغي ولا تجدنهم وأتكهلي دونتا يهودا أحرص الناس تطورنين يقود دال بديهين على حياة النلل ومن الذين أشركوا كوي قالضاها عن كتاب لهين ويكسين نلل جعلهين يود أحدهم مديا كمدا يهودا وحو جعلها لو يعمر إلا عمر السياء 1000 سنة كن سنة وما هو أرنكم ما أهان بمزحزحه مدو كبد بادين يكاه من العذاب عذابك كمبد بادين يسه أن يعمر إلا عمر السياء كن سنة عمره يسلقه والله بصير إلهي وأركيا وكما قرصونا بما يعملون الضدك وحا أي سمينيا عمل فلايا يهودا خرافات كودا يكبر كودا يسقن عنتودا وحا كمدها oo ay oran jireen aakhiro nasaaraduna deewaabay sida quraanku ka warramay ku raacsanaayeen waxay oran jireen la yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara jannada ku salaaxi maayo oo gali maayo qof yahuudiya iyo qof nasraaniya mooyaan hadal ay ku midaysan yihiin maaha laakiin yahuuduna gaarkooda ay oran jireen kuwan kale nasaaraduna gaarkooda ay oran jireen oo shaydaanka ayaa ka dhaxadlayo taa u laqimay oo u sheegay sidaas ay oran jireen xadiidka saxiixiisu uu tilmaamayo nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeen waa kuwii taa la soo hor fadhiistay naarta ayaa galaya waxay dhahan nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna in yar baan ku jiraynaa intii aanu dibiga caabudnayn laaga kadibna muslikiina noo weydaaranaya beentaasaa ilaahay uu shaybaadhkeedii sameeyey beentaasaan idiin sheegayaa ku shaybaadha sidan inay beentaasi aanay ka dhab ahayn dee nin jannada ku qanacsanoo inay diyaar u tahay jannadii oo halkaa u diyaar tahay ka ogsooni dee geeridaba uu iska taminiyaya leannu rafaadka tanuu ka baxaya sida rusushaba dhaqankoodu ahaa oo rususha ilaahay markay sii dhimanayaan waa la door gelin jiray in dee adduunyada uu sii jooga iyo in kale markaasuu aakhiro dooranaya siduu nebiguba dooranaya calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanaya caaisha inooga warramayso waaya haddii ay aakhiro oo looga jeedo jannada idiin khaalisto idiin gooni tahay geerida iska doonane haddaa ku run sheegaysaan jannadaa noo gooniya ninka janno isku hubaa ha iska dhaadhaco ilaahay owna dil dhaha sidaas wey islaamkeennu iyaga tan dhaabad baa looga dhig waa taxaddi baa la ydhaha dhaabad bay ku tahay waa lagu hor joogsanayaa macnaheedu markaa waxa weeye ma tamaniyayaanoo dee aayaddaaba caddaysa laakiin beentoodun baa lagu shaybaadhayaa caddaynaysa diinteennuna ma ogola inuu qofku geerida tamaniyo midkiin yuu geerida tamaniin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lidurin nazala dhibaato ku dhacday daraaddeed ayaamuhu sii joogo ayaa dee fursad iyo jaanis u ah qofka mar kasta oo cimri ilaahay uu ku siiyo fursad bay kuu tahay inaad ka faa'iidaysato wey ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين يجا أكسون وحي دنبي جيستينو كهر رأي عقاب كي نارها كهر رأي نمكو كتاب كي بآخره أنا ويسيليه ليانه يهودي وجينا على آخره وحبووني مركب التمنية يعني جيري ده التمنية تاسوامد جيري واحد تمنية قف كبلنقات كي لها هيستما هيستان وحكاه رأي أنا ويجي تاسوامد مد الله بارك اللي في سين أنا جيري تمنية وحوي adduunka marka la isu geeyo dadka jooga waa nimanka ugu nolol jecel bulay
وأنا من كوجن الله جعل لذلك بقى وسيلة والبا هي وضع والبا ومضها كد دالوية إلا مرة سيد الله نعلاه ومضنا وحلو جبيا والله صنعنا يا والله لا دجالنا يا نلشوا ذا إن أنا تعتابني أي وجود داليا علبك عاصمات كالدنيا ضدك وجوه الرئية برتوي بس يا ونعلاه سيا ها خاطير تودا سود وياه أكيال واي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة يرجع على حياة ونكره يا بالله نكرينا وحكم له يران شيء قاس ويريه على حياة نلل كسته ولو حياة مع الذل نلل دليسن بها تدي لا هذا عسيبات كل ما نيسام نلل دليسن ما أنا نلل بعيد درم دلي هبا يسكت دليسناته اللي جريد ومر بين نلش العنتاعي قفك مسلم كايوح أمسية نلش دلي جايني كفي عن تيرو شهيده ده إلى هيكتيس الشهادة ويلا على حياة نلل كست النوع يدون ساعات من أي نوع كانت ومن الذين أشركوا وكبيان كتاب كهيسنو ده يبان لو يشعين قالوا لنا من نلش هو بتشعلي الدون كمان تهدي اللي لها كنين لقال لقى جريده ولا كساو قال سنة الله وحكست الله يا ولا سيسله لكن مجر لا سأو فكرة يا وحوي متكود وحو تشعلي أن يعمر 1000 سنة كل سنة عمره جيس لقدقه وما هو بمزحزح من العذاب أرن كنا وحوي إن أنا كن نبت قلينا إن عذاب كأن يعمر إن لعمر سيه كل سنة كمان نبت قلينا يس عذاب سلا وقلنا نبت قليسه كل سنة هدي عمره يهودي قام قال لقدقه ده وحوي سي كرد يوم عمل كيسي حبا خير الناس من طال عمره وحسن عمله dadka waxa uu khayr badan buu nabigu عليه الصلاه والسلام qofka cimrigiisu dheeri amalkiisuna wanaagsan wa sharru an-nasi man tala umruhu wa sa'a 'amalu waxa uu xun dadka qofka cimrigiisu dheeri yahay amalkiisu xun yahay kaasu bay daan noqon lahaay mumkin sana maxay u kordhinayaan iimaan laawe waxay u kordhinayaan shar ala shar noocyadiisa kala duwan bay u kordhinayaan idan marka arintu maaha عمر بدن لكن وعمل ونكس عمر بدن معها لكن وعمل بركة له عمر أنتوا إلى هاي كو بركة ياكو حسابا له لكن عمر بدن إلى عمر النور دايره لفاق راعية وحتى لا إله إلا بركة عمر الدار وحل ضياش إنه هرون ترى إيه عمل ونكس وحفي عم به أنت اللفاق بيوصل مين يعني عمر الدار يعود يعرور مثل بركة يا الله راعية بالنبي ده أولا دعاء ده بركة يا خير يا وحل الراعينا يا لفاق إذا وحال كان إنه جم وضع ومضها وحيابها زيمة وجوع عن يوهن كي ضعيف نمضى إنه كم دي هاي وحل هذا الدنيا شعيل كي غير نعيم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومضى والله هو ظهرية هو الضبابة ولي ومضها صوص على وحل عدانتين ومضها الدنيا السجوكين يردان على معنى الحديث مركز أفصال كش لقينا حديث ومضها الدنيا ده يسوقين يران دورة كما تداعى الأكلة على قصعتها سيدا هذه الشيء حيرة الله وضعونا يضدك سوق يران وكالا يدنا نلعون كالا يدنا نلعون أصحابته يا بينا وحيران مالنتا أو من قلة يا رسول الله ميانو يرنا مسلمكم مالنتا بيو يري ما يبي أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما يريدين وابدنتهين لكن وحاتهين ضاد حورتن ضادك أو حنبضة ضادك وكلاتي أياتي من النبي عليه الصلاة والسلام أصابكم الوهن واحد يكون عيب الحنون كالله يرى وهن كاس محوها بين وهن كاس ضعيف نملاص وحنبي والحب الدنيا وكراهية الموت الدنيا شعيل يجري النعيب يدا دولي سنتهين بعدون كساوسي قنين سنتهين أيا ليدين دولي سنة ليدين شكولايا المهم ركا كل كدب له يقول الله بعض الرماد وجوه مهم سنوات الدنيا شعيل مسلك الدلينية ومن أسباب الوهن واحد ضعف نمضة يدل نمضة وحيابها كانوا حكم ذا الدنيا شعيل يجري نعيب وحكم ذا بيلين علماء وحيابها هذه الشعر كان وهن كائس إيمان كود ضعيف ضعف الإيمان نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
مؤمنك قوي ayaa ilaahay uu ka jecel yahay ka daciifka ah wahan ku dhacay marka quwadda la sheegayana waa quwadda iimaanka ee quwaddii muruqyada kuusanahayd maaha waa quwadda caqliga iyo quwadda fahamka iyo quwadda cilmiga iyo quwadda iimaanka waxyaabaha wahanka keena waxa kamida at-tanaazuc wal ikhtilaaf at-tafarruq kala kaca muslimku uu kala kacay faraar uu yeeshay safkaran waayo qolo waliba dhan u jeesato ilaahay baa ka diga wuxuu wala takunu kal ladina tafarraqu dad badan baa adduunyada soo maro iskhilaafo jabay hala mid noqonina wala tanaazacu fatafshalu watadhab riihukum yaydaan fashil minoon awoodiinu tagine ha iskhilaafino ha kala tagina buu ilaahay subhanahu wa ta'ala wa min asbab alwahn waxyaabaha keena in ummaduhu dhaifan waliba ummadda islaamku waxa kamida at-tarbiyatu sayyi'ah ala ridha bidhul in hadiya jeer ummadda lagu rabeeyo waliba daayirtooda soo kacaysa inay iskala qabsadaan inay isdiibaan u dul leeyahay barigi hore waxa lagu rabeyn jiray qofka muslimka ah inuu yahay qof isaga iyo diintiisuba ay sareyso yoomin alayaamna gaalka ka adkaan doona Qustantiniya halkii la oran jiray barigi hore Istanbul la yiraahdo 800 sano la sugayay in la furo nabiguna ku sii bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam nin dhalinyarada farta ku fiiqay oo kamid ahaa dadkii muslimiinta halka jooga Uthmaaniyiintii ana furan doona buu halka insha Allah ta'ala sidaana ilaahay u dhabeeyay subhanahu wa ta'ala laakiin daayirteena iyo dadkeena markaynu qalbiga ugu shubno lagu rabeeyo adigu dabadhilifka tahay adduunyada soo koraysa tahay kuwa saddexaad baa tahay rag baa meesha u xiran tahay kuwaas baa laga xaray waxa marka dadka tacliinta loogu sheego ee lecturada loogu sheego maamulka loogu sheego goormaysa aakhira toosaya saasuma iyaguna ku rawaxaya waxa kamida bay leeyeen culimadu musaahabatu al-mukhadhiliin inay dadka lala watan horu baabay mala raacsan tahay in dadka hadiya jeer wax duleynaya oo qofku ka agdhawaado oo shisheeyihii laftiisi uu heelay al-islaam ya'lu wala yu'la alayhi nabiga alayhi salatu wasalam ku sareeya laga ma sareeyo waxa kamida cadamul isti'daad inaanay dadkiiba diyaar garoobayninba ilaahayna dadka isaga rumeeyay awliyadiisa oo Allah baaq buu jeediyo wuxuu leeyahay waa'idu lahum mastada'tum min quwwatin wa min ribaadil khayl turhibuna bihi aduwa Allah wa aduwakum wa akharin min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamu قال يا منافق با ha cabsadeena awoodiina diyaarsada bilaahay kayna la hadlaya waa kii iyaga abuuray inagana in abuuray adduunkana iska laha dadkana sidoo kala jecel yahay noo sheegay marka haday dadku amarka ilaahay qaadan waayaan oo aanay diyaar bahayn oo sidii ciise ku yeelan lahaayeen dulli kaga bixilayeen daciifnimo aanay la diyaarayn waa min asbaab alwahn wa tan hubbu dunya wa karahiyatu almaut akamida jahliga aqoontu wax badan bay ummadda kor u qaadaa isigooda sharaftooda taariikhda hore qofku og yahay taariikhdii ummadii hore taariikhdii asxaabta taariikhdii dadka muslimiinta ay lahaayeen cilmigu wax badan buu dadka kor u qaadaayo wax baraa waxa la kala macaashayo qofku ogaanaya iyo wuxuu u socdiyo wuxuu u nool yahay yarfa illahu alladheena aamanu minkum walladheena utul ilma darajat dadka cilmiga la ilaahay uu kor yeelay subhanahu wa ta'ala man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din qofka ilaahay uu khayr la doono ciisigu kamid yahay ilaahay diintu fahamsiyaa buu nabiga alayhi salaatu wasalaam idan marka jahliguna wa asbaabta wahanka keena ummadda islaamkana waxyaaba lagu dulaysto waxa kamid in aad loogu la dadaalo inaanay diintooda baranin oo quraanka iyo qiyamku lahaa iyo sunnada saxiixa nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo siiradiisa iyo taariikhdiisa dadka manaahijta aan loogu qorin laga durkiyo la yiraahdo irhaabka iyo argagixisada iyo waxaas ka baranaysaana bal iska yareeya meeshan sidinku dadka idinkaga dalacan yahay waa halkaas bay kuleeyna bal inaga khafiifiya almuhim kullu hadhihi waxay kamid yihiin min asbaab alwahn marka waxay noo geysay waxaad ku heli doontaa inay yihiin nimanka ugu nolol jecel noloshaas dulliba ha wadato almuhim marka dadka muslimiinta laakiin ciisigooda iyo diintooda ayay dareensan inay ku nool yihiin ilaahayna waxaynu ka baraynaa ciis iyo sharaf iyo wanaag inuu nasiyo dhamaanteen iyo muslimku meel wada joogaba wahada ma aquluhu astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان